labadii September 2023 dhagar ay khawaarijtu la damacsanayd ummadda Soomaaliyeed oo la fashiliyay ama dadkii laga badbaadiyay saaka abaara 10:35 daqiiqo ayaa khawaarijtu gaari nooca raaxada ah ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa si ay dadka shacabka ah waxba ka galabsan ugu dhibaateeyaan ciidanka saldhigga booliiska degmada Dayniile oo roondo ku jiro oo ay la jiraan maamulka degmada Dayniile ayaa ka hortagay gaarigii oo shaki laga muujiyay sida uu meesha ku soo maray iyo meesha uu marayay xaafada dhexdooda ah uu rabo inuu ka soo baramuuday ama si dhuumaalaysi magaalada ku soo galo ay ciidankii iyo maamulka isla jira gacanta ku dhigeen waxa la geeyay barta hubinta gaadiidka iyadoo eedeysanayaashii ama dhagarqabayaashii gaariga la socday la su'aalo weydiinayo ayuu gaarigana shaki laga muujiyay isla markaana laga fogeynayo gaarigii dadkii shacabka ahaa ee goobta ka agdhawaa iyo ciidamadii goobta ka agdhawaaba ayaa gaarigii qarxay halkaas ayaa gaarigii ku qarxay wax qasaaro ah oo haba yaraatay ka soo gaaray dadka shacabka ah ee goobta ka agdhawaa iyo ciidankii dhagarta fashiliyay ma jiraan wax qasaaro oo haba yaraatay ka soo gaaray laakiin gaarigii oo qarxay ayaa labadii eedeysanay oo gaariga ay la socotay ama waday dhagarqabayaashii gaariga waday gacanta lagu dhigay iyaguna hadda waxay ku jiraan gacmaha hay'adaha ammaanka waxa socota baaris faahfaahsan oo la xiriirta gaarigaas halka sida uu ku soo gaaray iyo faahfaahintii gaariga la xiriirtay dhacdadaas oo dhan dhanka kale eedeysanayaasha oo bad qaba oo aan wax dhibaato ah qabin ayaa hay'adaha ammaanku gacanta ku hayaan waxa socota baaristooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa ayaguna maxkamadda awoodda u leh la horgeyn doona si cadaalad loo waafajiyo sidaas si leeg faahfaahinta iyo natiijada baarista kiiskan oo dhameystiran ayaan ummadda la wadaagi doonaa laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaan uga mahad celinaynaa in ciidamada ammaanka howlgalkoodii ku jira ay fashiliyeen dhagartaas gaarigaas ay khawaarij tirtay in dad shacab waxba ka galabsan ku dhibaatayso khawaarijna waxaan leenahay ama dhagar qaari ku soo xiri lahaydeenaa ama si dhuumaalaysi howlgal inay ku fulisaan isku day lahaydeenaa ciidamada ammaanka iyo ciidamada qalabka sida jamhuuriyaddu diyaar idin yihiin dalkana gobolkiinu waa dhacay biidnillaahi ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa Soomaaliya si ugu dhaqsiyaha badan inay noqoto goob khawaarijta ka caagan waa neef gowracan guud kama waabto hawlgallada iyo si dhuumaalaysiga waxyaabaha ay rabaan inay ku fuliyaan ciidamada ammaanku waa u feejigan yihiin kuwa difaaca waa u feejigan yihiin diyaar loo yahay waana laga qabanaa khawaarij iyo dhagarteeda biidnillaahi albaari salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u mahadsantiin